war waxa la rabaa inaad mayga baratood ku heestaniyo xawaalaba soo kaaf canfar ku heesa inkastoo hadda isaga laftirkiisa la gatay ya for sale wallahi billah Djibouti waa hadda for sale ku jira Ismaaciil Baaskeesh isaga laftirkiisa moogta isagoo for sale meel laga arkay shalay tolan oo caay war waxa saan ku nacay fanaaniintii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا ولالكينا ونلي مر لبعض كسر دواء channel كا عاد بني سلام يا دمان ملو بدو كجوكتين أنت معلن وطيب وناكسن أنت هبين وناكسن هرت النما يوم مركب كوبات وحن أد إني قاعد سنة يا عذر دار تصع سلاسل إذا صار عفتي واحد شو يسين هالفيديو ناكسوري دو هرت النيا هو waxaan rabaa in arrin yar inii macneeyo aniga waxa waa iska baan xoogsidaa reerna waa leeyahay saaxiibran iigu soo sheegay marka waxa waa hawlaha marmar ay isqaban waayaysaa ma garateen waxa waa niman meeshan ay soo wacaan waxay dhaanay oo kale waxa loo baahan shaqo dheeraada marka meeshii aan aaday aan ku mashquulsanaa muxuu ahaa labadan bari laakiin waxaan insha Allah ku tala jira inaan hadii la heraa dadalka xagga aan ka soo wado marka mid kale waxaan weydiinayaa filimka ayeeyo waa filim aad u hawl badan wuxuu u baahan yahay waqti dheeraada wuxuu u baahan yahay editing badan in daatada marka dhow la yimaado waqti dheeraada la siiyo marka waxaan rabaa in aan fiidiyoyada aan u bedelo fiidiyo muxuu ahaa qaar dhibtooda laga sheekeeyo dhibtooda maaragtay in wax uga bedelaan kulley dhaliisho dadka waxa waaye anu waxaan aaminsanahay qofka marka la dhaliilo in wanaagiisa la rabo marka waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed dhaliil kama dhamaato taas waa mid kale maxay ahaayday barnaamijyo sidan oo kale oo wacyigelina iyo reaction badan oo sidana inaan u bedelo waayo sababtoo ah ahaan inta oo maaragtay oo xogaha channelku inta ka roonaanayo waxaan isdhahay fiidiyoyada ama muxuu ahaa barnaamijyada inaan ku soo koobo maaragtay vlogyaal sidana hadhow tole hadii la heeraa markaan helo muxuu ahaa dhalinyar oo barnaamijka aad igala shaqeysa markaas waxa laga yaabaa inaan filmaan oo maaragtay xataa kuwii hore ee ayeeyo filmaan ka sii dhaadheer in inta hadii la heeraado laakiin mid ay iga yaabisay barnaamij meeshaan horta rabaa inay leeyahay dhageysatiin Shut up, everybody. Listen. Inta Soomaaliga ku hadasha meel kasta joogto waa salaamaya ma Muqdisho mise inta kale Muqdisho iska maqnaatay laakiin inta kale way iga badan tahay $1 haday siiyaan average waan $1 haday siiyaan su'aal xagga muxuu su'aal saaxiibkay $1 haday siiyaan average waan horta waxa waa sideedaba qofka fanaanka maaragtay fanaanku markuu leeyahay waxaan ay fanaan Soomaaliyeed imika dad u heesayso Ethiopian oo kale fanka kuma koobeysid maaragtay qabiil Ethiopia kamid ah fanka Ethiopia oo dhan u dhaxeeyo waay anu saan aaminsanahay waay marka niyahow labadan bari waxa hata mar hore inaan ka hadlaan rabay laakiin Janice aan u waayay waqtigu aad igu yaraa awgeed muxuu ahaa ninka horta Maxamed Saciid Cabdi Biikal leeyahay si waxaan u yar arkay inuu yahay nin xoogaha maaragtay danaysta qofka bini'aadankuna markuu leeyahay fan baan rabaa ama bini'aadanka rabaa inaan heeso waxa qurux badan inuu fankiisa uu hal meel ku koobin inuu yaani fan ummadda Soomaaliyeed oo dhan u dhaxeeyo inuu ka dhigo sababtoo ah kuwa horta fanka waxa loogu jiro waa dhaqaale waan sugnahay cabdigan marka maalin dhaweyd oo Nairobi aaday suusho iyo xog soo qabto waxa way horta sideeda markaad sameynayso maaragtay hordhac ama aad bulshada aad u sheegayso inaad magaalada joogtid oo lagu camiro bulshada Soomaaliyeed oo dhan yaa la hadlaa la isma koobo taas horta ka xumaatay kow صاحبك عيوسف عالم كيف وزيتي يوري والنسوية معناتها وحاولت كعالم آمن سنة والنسوية هذا كلام معناتها إيجو طلع أوكي نقول ودك يسجع العضو ودك يسجع العضو ودكان يسجع العضو يعني يكون مجرته أرجع لك كتار لكن مركعات هرجيسو كل جيسو شو أوكله هي مركعات كل جيسو دجانا ذا كلاش مرضو يدقن تاعي هرت إن يرى عقلية يا لو بهني إن الله قدره وايو نكان هرجيسو مجوج هرجيسو دجوج لها war xataa laftiisa yimaada hayra qalad ma fahanteen laakiin hadduu yiraahdo maaragtay waan sugaya inta calanka Soomaaliland dhulkooda macnaheedu waxa waaye dadka Somalilandarka
ayaanu qabanayaa showgan okay arrintii xamaasada kicisay ninkii arrintii uu suurtagali waday in meesha jooga ku kacay waxa la yiri saaxiib meesha iska agniyo Somaliland ma ahane sidii aad ninkii lagu waliba laba goobood iyo rabay inuu ku qabto markii hore soo noqon weyday tii labaad haddana waxa la yiri saaxiib kacar meesha ninkii aad sidii ku yimid Hargeysa uu soo noqday asoo madax xoqana xagee ka bilowdaale haddaba kaba yare ay tooshweyn soo qaatay والله إني ما كان أوجادين يتري عادي ما هو شديد شركتي مركي ناكتي دبل كقاعدة ما كان عندي حاين صاحب كي مركا وحاو صومالد واحد ترادا دقمها وحا وقدرن دقن سكي يعني دقن سكي لقى موضوع مركا دقن أو إسكوعيداتين دقن سكي وحلقة ولا صاحب كما كون هو كرد دقن سكي قف هذا من ستة وكود دقمه بقى استاصل لقى ورا صومالي صحراء مركا نيهو نكي saaxiibkiisii oo muxuu ahaa intaas ay fikir wada jireen ee uu shalay tolo isagu u dooranayay madaxda markii la lahaa muxuu ahaa ayaan dooranaa madax muxuu ahaa xidiga geeska asaga ka mid ah dadkii dooranayay inuu ciro noqdo maxay ahayd ay gudoomiye xidiga geeska ninkii asagii dib ugu soo noqday hadii maxay ahayd sida hadda la sheegay yani asagu toos ugu tagin laakiin dhalinyar oo xoogaha qabqablayaal oo muxuu ahaa hubbi waxsita guriga u garaacay ninkii aad sidii waa soo fakaday sidii lagu soo qaaday muxuu gaari lagu soo qaaday asagoo sidii tahriibta wadamada marka loo tahriibayo amal gaari loogu sido oo dhul aan u fahmay qow iyo inay dadgan yihiin la wado iyo clipka soo duubeen clipkana in yar la daawado ka war xaaladda aad gudoomiye abti insha Allah billahi karim shirkada weyn man qaban doona waxaan ayna xalay aad wax foortin bihaayeen wax fanka iyo qarannimada Soomaaliland bay ku abeeyeen أنا لا أدبر وحماي لكن الكثير جوجان هاي واحدة في الغاز. أوكي مركا إلى أن نقول إن كان دول كيسي سجوا جوجا بوماليسي وكجرا حلقي يكون نبض لك رابين لا تاي وأرمها معجزة مقطع الصومالي كنعدا وحاول هرت أول قبيلة الشيء قال لا فنك ما يسامين جرن بلا آذنك أولي بس يودتك أو جهل ضعف يا وحى كده ميريسين جري هذا لكن واحد مدة إني أبوان ندي أما فنانينتي ninka abwaanku inuu deegaankiisa soo amaano hees soo amaano wax ceeb oo markaano waarin fiican bilcaks laakiin ninku markuu deegaan kale uu ku weeraro abwaanku marka waxa way isaga laftiisa dhuuxay ka jirtaa heestan ilaa dhageysto xeer hadii lubaad ku socoto tool la xodkaaga dhaco marba looga laga jaraa laangale xalkooda tantaada kuludisa ninkii marka ilaah baa nagu dhaariyay nin deegaankiisa jooga oo ammaan kula yani waa arin la yaab leh waxay ka dhigan tahay in ninkan deegaanka la leeyahay warniyo adu deegaankan mati asaga afkiisa ku soo qoray hadda koor facebookiisa wuxuu ku soo qoray sida tan والله بالله قبيلات عاد ورنتي وقتها غيرسنay sababtoo ah يعني nin meesha ku dhashay oo ku garaadaystay oo lagu dhalay oo ku dhalay oo inta ku leekaaday oo ku dhaqmay oo muxuu qadiyada dadka kale uga siman qadiyada Soomaaliland dadka kale uga siman in la yiraahdo reer Soomaaliland mitiid horta waa damiir xumo aad wallahi billah waxay damiir xumo ku tahay sheekadii carabti waagi oo Falastiin ay isweerari jireen ee nimanka Suudaanti u tageen la yiri yaa abid la yiri yaa ximar هذا وانين ماشي مدو أو إسلام محوها ولا عليه إنه إسلام أو لدان تانساني هاي بالحوجة سود دفاع تيو كلا نقطة نين كان ولا لكن ماشي نلدقن محوها إذا كجور سيدي أبنشان أبتيجا دو تهين ده الشيء كذي واحد كذا نكتن ميا أبتلو ما أرجوه ولا لا أويا وابجابه والله بالله مركا نينكي هذا الحاسوس هنا هذا اللي نقول دارين وحسمي أصيد بالو سوق حينكي ninka markii lagu soo kaxeeyay ayaa maxay ahayday hees iyo hadana soo qaaday ninka la leeyahay BK oo uu ku leeyahay maxnuuha labada lugood mid la xuskaaga dhaco waa la jaraa macnaheedu waxa weeyaan jirkaagu hadduu lugtaadu ay xanuun kaaga dhaco waa la iska gooyaa eeg hadda aqliga fiiriya af Soomaaliga uu adeegsaday waa Soomaali wax ka qaldan yihiin يعني كل كروح آمنسنا الصوماليدو إني مد أحيان أو خلجر أي أحيان لكن مقدشة حماتيو مقدشان إسكجرينا أنا أسألو فهمي وأنا سيد هاي قفل صوربو معني سكرة لكن أنا سئلت هاي واحد مركز شلاي طولي
markan uu leeyahay jir mid aan ahayn hadda laakiin waan jarayaa ilaah baan ku dhaariyay hal nin oo muxuu ahaa dictatoria oo muxuu ahaa kuwiisa xitaa laayay dirtii iyadu umad Soomaaliyeed isku daraysaa miya arinta horta uma taageersanin muxuu ahaa laakiin qadiyad jacaylka iyo muxuu ahaa Somaliland jacaylnimo iyo xurriyad raadis iyo ina Somaliland ay go'do hawlahaas oo dhan waa hawlada dimuqraadiyad qofku u dhigi karaa warniyo inteedana rabaan inaan ilaashado wax ayba kuma jiro laakiin walaalaha inaad weerarto oo aad tiraahdo xanuun bay qabaan oo way qurmeen oo iska goynayaan horta waa arin aad u falxun aqliguna inuu shaqeeyo loo baahan yahay nin walaalka hadii ilmo yar ay ku soo daandaansadeen ay kaba kula soo mareen ay ku soo eriyadeen ilaa Hargeysa ma aha inaad Soomaaliya oo dhan nimanka yar dirtood aad u tiraahdo way wada quransan tahay Soomaaliya ninka abwaanka ama ninka fanaanku markuu heesayo murahan uu ku heesayo loo soo sameeyay waa inuu fahmo koow anna Soomaali garanaya tahay marka aad hadallada ka soo baxay adiga laftirkaaga waxa qurux badnaa inaad miisaanto intaan hadalku ka soo bixin marka wallahi billahi niman reer Somaliland oo heesa soo sameeyay ay Soomaali weyn ku amaanayaan oo laxan ay u raadinayaan iyo ilaa hadda binji ku jira ama xabad madax la inaga saaray ku taagantahay oo kamid uu yahay Cabdiraxmaan Oday hees buu soo sameeyay muxuu ahaa oo Soomaali weyn ku amaanayo ilaah baa nagu dhaariyay abwaankii Soomaaliyeed markuu ka cabsado inuu afkiisii hooyo uu ku heeso taas ugu wacan tahay deegaanka uu joogo in ay cadaadiyaan fanka Soomaaliyeed marka muxuu fan leeyahay watan fahmi laayahay fanka Soomaaliyeed Hargeysa kaliya iyo fan yahay naba ma noqonayso shalay toole Saara Axmed iyo nimanka walada waa bari ku jiray iyo ilmaadeeradii bay wada haayeen waliba laftiisa ay haayeen Maxamed Biki ilaah baa ku dhaariyay markii shalay toole muxuu Saara Axmed iyo ay ka soo heesayeen Muqdisho sida loogu caleemalulay loo heesay dadku ay xataa qarkood u dhaawacmayeen si ay riwaayad u galaan fanaaniin Soomaaliyeed baa haayeen ilaa haddana way helintii nool intii dhimatayna Allah u naxariisto war kuwaas maxaa ku diina ku deeytid inta leedahay lug baa la gooyaa iyo gacan baa la gooyaa iyo madax baa la gooyaa wax la gooyay kaaga dhigtay adiga goystaan inta aad ku maqan tahay wallahi talaabo qaadi maysid oo iga koowa inta goysta aad ku maqan tahay talaabo qaadaysid hadii ma aqaande aad muxuu ahaa shalay markaad Muqdisho aad muxuu ahaa masjidada damta saa u siinaysa ee boosaasada midadka luun ku dubanaysay yaa kula hadli jiray kula hadli jiray saaxib wad ordi jirtay meesha rabta ordi jirtay marka dadkii ku soo koriyay maanta muxuu ahaa adoo inta leeg in aad dib ugu noqoto tiraahdo horta Soomaalidu waxay tiraa boqon baa deegaankeedii iyo dalkeeda dafartaa la yiri adoo weyn baa timid Hargeysa run baa isku sheegay adoo weyn yaa timid Hargeysa run isku sheegay Muqdisho aad ku dhalatay xuduntaadii xudurtaada Muqdisho taala reer Muqdisho tahay hadda koor baad lahayd Muqdisho waa dalkaygii Muqdisho waa hooyadii sagalay waad mahadsan tahay anu Muqdisho ku dhashay waxaan dhashay 84 haddana maanta adiga le Muqdisho hay naga hadho ha go'do waan goynina Muqdisho sidii loo maaragtay waa saad la ku dhigtay ana waxaan nafkay ka sameeyay maahinay marka waxaan leeyahay Maxamed Biki iyo aqligaaga madaxan yar inteeray ku jirtaa dib ugu noqo soo shaandhee ma ogtahay inay dad wax ku sheegin waxa la timaadaa sida ugu dhaqsaha badan leh cudur daar waa haddaad rabto inuu fankaagu uu sii jiro haddii aad rabto inuu fankaagu sii jiro wayna ahayn debel baad u heesi fanaan beelad baad noqonay sheekada muxuu ahaa Jabuuti ka jirta amal Ismaaciil Umar Geele laba nin oo isaga uu heestuu leeyahay oo markuu qeylay kama soo qaadata Ismaaciilow aabihii dalkow hooyadii dalkay islaantiisa xataa lagu daro oo xagga googooda ka qaata ninkaas maanta aanu ma dhageysanay heesiisa qof kale ma dhageysanayo muxaafidiintu ma dhageysata iyo nimanka maaragtay doorashadu markay xoogaa meelaha socotunba unbaa la daaraa heesaas haddaad saa rabto inaad noqoto xukuumadda Soomaaliland oo heesniyo kama bax fanka maxaa dhacay intaad Muqdisho iyo lambarra aan lagu dirin aad ku meeraysanaysa leedahay waan goynayaa lug baan goynayaa iyo gacan baan goynayaa marka horta aniga waxaa weyn hadalku si dheeraan ninka walaalkeena waxa leenahay loo duceeyo muxuu ahaa nimca jaamac waxay tiri afkoon baa in yar kala duwanay uliya diir baatiin Soomaali meel walba joogto waa uliya diirkeen
abwaaniin baa kulana horta kale abwaaniintan alla qeyshiday ku garab fadhiya ma qabyaaladun bay ku baraan maxaa dhacay Soomaaliga aw murtidii aw Soomaalinimadii aw tan kale inaga daa siyaasadda xukuumadda Soomaaliland iyo lambaradan maaragtay taas waa diblomaasiyanimo iyo muxuu ahaa ayaa loo dhameyn hadii la rabo laakiin adigu kow war ilmaha dhalayso unax adiga qofku bilaadanka hadii isagu maaragtay uu ka fikirayo qabyaalad iyo muxuu ahaa in Soomaalidu kala dili haduu ka fikirayo isagu qofku beritoole dadkan wadankan aadka cagaarkan iyo nimcadan dad baa dhistay ilmihiisa markuu dhalay waan ognahay waxay mid halkan nimankii muxuu ahaa naaziintii baa miday oo gowda ka saari jiray ilmuhu aabihii kama maqlin iskuulku ka soo maqlay laakiin anagu xumaatada Soomaaliya u dhaxaysa haddaan carruurtii nooga sheekayno Ilaahay baa nagu dhaariyay goormay carruurta oo dhabarkiina ku jira ay wadanka wax u qabanayaan oo ummadda wax u qabanayaan ay wadanka wax ka bedelayaan kii maadaama markaa wuxuu wataa ideolojiyadii qabyaaladda ahayd niyo baasha sartu waxa waaye waa aniga sayla tahay waxaan iga dardaarana qofkii qabiil aaminsanow waa dambaysaa runtii waay wallaah qofkii qabiil aaminsan oo dambeeyaa haddaad adigu dambaysana ilmahaaga dib hawrideen adigu iska aaminsan waxaad aaminsantiin reeland dheer iyo reeland gaabi iyo reeland dhexdhexaadi iyo adiga ku tala waxaad aaminsan tahay laakiin ilmahaaga dib hawdhigin adaa dib u dhacay wallaahi billaahi tallaahi bani ma sheegay qof maanta qabyaalad ka shaqeeya oo professor ah ama muxuu ahaa dean ah ama muxuu ahaa bachelor ah ama muxuu ahaa PhD haysta ma aqaande waa nin majlis ku qayilaya oo qoriiro jaadin soo qaatay meel fadhiista oo reebel maxay sheegeen reebel maanta maxaan ku dhahnaa reebel maxay nagu dhaamaan un leh waa empty dargam maskaxda shil kuma jiro inta ay rajaadka markuu haysto qabyaalad buu galaya dadka saasa qabyaalada lagu yaqaanay wax ay qabtaan la laakiin markuu fanaan ninku uu yahay war waxa la rabaa inaad mayga baratood ku heestaniyo xawaalaba soo kaaf xanfar ku heesa inkastoo hadda isaga laftirkiisa la gatay ya for sale wallahi billah Djibouti buu hadda for sale ku jira Ismaaciil Baaskaash isaga laftirkiisa moogta isagoo for sale meel laga arkay shalay tolan oo caayay war waxa saan ku nacay fanaaniintineeyo lacag yar bay arkayaan isagiiba ma ahaba waxa waa shalay tole sunni buu hamaanta shiici hadu rabo moogta marka niyahow fanaaniinta Soomaaliyeed waxaan leeyahay war fankiina fa Soomaaliyeed ka dhiga fan beeleedka naga dhaafa iyo fan qabiilka iyo fan muxuu ahaa laba oday loo heesay iyo inaga daaya hadda waxa la rabaa Maxamed Bikey inuu maay ku heeso oo xamiri ku heeso oo sheekadii buruski yaraha la keeno beesantuma wala Bikey inuu ku heeso la rabaa waa haduu rabo inuu fanka sii joogo waay sayla taani wayna ahayn de meelaha cirigaabi iyo maaragtay budbud moogtahay marka waa kaasa intaasaan niyahow maanta iga wax cusub ninkaasoo xoogaha fanaan Soomaaliyeed anu wallahi taageeriisa kuwan ka ahaa gaadhigayga hadda waxa ku jira malaha tiraba 20 heesoo isagu uu leeyahay ayaa ku jira waan dhageystaa laakiin hadda laga bilaabo boycott waaban joojiyay Bikey iyo muxuu ahaa lambaradiisa iyo nimankan xoogaha sacabadu tumay heesaa soo sameeyaan oo dhan iyo waaban joojiyay ciro alla ilahay dumarka horta waxa xagga dumarka xidiga geeska waa top waay wallahi waxa xustaa geeyo oo muqdisho inta markay soo noqotay tugtamaysi hal cafiyo maxamed dambigay gashay waa fanaanada Soomaaliyeed niyo halkan markay imanayso Ingiriiska tagis maxaa loo qabsan lahayd Ingiriiska tagtay way soo heystay okay Soomaaliya waa joogtay Ingiriiska we know muqdisho tagtay way soo heystay soo noqotay waxa waaba naagdiintii ka baxday amal what the heck war baashu telka taagintahay wallahi billahi talla wala fan baa hagaaga wala dal baa hagaaga wala muxuu ahaa siyaasad baa hagaagta wala awlaadeena hagaagta wax hagaagay ma laha marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed inta muxuu ahaa aqligiina miira moogtahay inta oo aqliga uu ku yar yahayna waxaan leeyahay dadka aqliga u saaxiibka malahooda raaca intaas iga waanaa iyo wara waa anigoo walaalkiin horta waxaan rabaa inaan ogeysiiyo Soomaalideena mid baan ku xunnahay qof baa videogu waqti soo gelinaya juhdi soo gelinaya waqtigu ku dhuminaya waxa la sameeyaa inta la daawado ee hor looga sii baxaya wallahi hadda rabtina videoyadu qofka soo saaray ay ku ajabiyeen oo arabtina dib u sii daawato rajaad kale leedahay war like-ta iyo muxuu share-ta iyo subscribe-ta intaba iyo gambaneelka intaba isku raaci hal mar waa hadda rabtina videoyada dhageysta laakiin hadii oo ku ajabiyo dadku ka fikrad ma aha I'm okay with that يعني قفك هذا فيديو سوق عجبين وايو قسم ما هنا سبسكرايب أتعبط أما لا يوصلته فيديو عجبين لكن هذا سميسه واجب صوبته قفك نجهد إنه قلنا فيديو كان حدو توصيل بدنا مركو أركضك يعني كل يرجلنا لكن هذه أنت أنا داونا إما كان الفيديو ده قرب ملها دور بقوله فيوز له
intaasoo boqol qof ay daawatay laakiin waxaa waaye ma aqoon leeybay naga tahay ma maxay ahayd waxay naga tahay dee ma ogi yani waxay doonto waa naga ato laakiin qofka waxaa waaye meesha yar casay subscribe ku qoran tahay war meeshaas ha loo taabto saaxiibayaalow aniga iyo Soomaalida youtuberada maxaa sheerna loo dhaho si uu qofkan fiidiyoodiisa ay u sii baahan qofkan loo ogaado juhdigiisa iyo muxuu ahaa hawshan uu hayo marka waxa way qofkii waxa laga yaabaa dad badan markuu arko inuu hawshan inta ka sii badiyo marka aniga laftarkeyga fikrado badan bay ugu jira oo ilaa hadda aan soo bandhigin hadii la hada ilaa intaan bulshada ay ka weynaanayso inta dambe hadda subscribe channel ka saarteen aad baan salaamaya aniga magacaygu waa Khadar Miicaad oo ku magac dheer soo banay sabiidooda soo daawateen marka aad baan wada salaamaya waan jecelahay Soomaali meel walba joogto nabad ku waara qabiilay ku waara aad baan soo salaamaya waana walaalkiina oo mar labaad idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh